shabaab aan koo markan ku biiray arday dugsiile ahay dugsi diidnimo uu biiray iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyey ay soo kordhayeen horjoogayaasha iyo maleeshiyaad ka tirsan argixisada al-shabaab ee ka soo goosanaya iskuna soo dhiibaya ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa waxaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed isku soo dhiibay 11 maleeshiyaad ka tirsan argixisada al-shabaab kuwa oo u dulqaadan waayay howlgallada joogtada ah ee ciidanka xoogga dalka ay ku baacsanayaan argagixisada iyo dhibaatooyinka argixisada ay ku hayaan ummadda Soomaaliyeed iyo tan iyagu ay isku hayaan. Haddaba waa kuwan qaar ka mid ah maleeshiyaadkii ciidanka xoogga dalka isku soo dhiibay oo ka waramaya meelaha ay ka soo goosteen iyo sababta ay uga soo baxeen argixisada. magacii Maxamuud Ismaan Axmed oo iska soo dhigay deegaanka oo Sawiidi Caanoole marka mar hore shabaab waa jiray haddana waa ka baxay marka ilaahay ku darnaade waxaan macna aan qaabilsanay danka oo haweenada aniga waxaan ka shaqeyn jiray meel yiraahdo tuurtuuru agteed degmo saaqo soo dhigay Sawiidi Caanoole imaadeen muddo waxa laga joogaa 3 bilood oo kale laga joogaa naayanka wax bari jiray naayanka wax bari jiray quraanka iyo salaadan bari jiray. sidoo kale ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa waxay howlgal ku soo badbaadiyeen 2 wiil oo aad u dayar kuwa oo argixisada al-shabaab ay ka afduubteen qayb ka mid ah gobolka Bakool uno beero ku inaa xafado on jeen yaa jaahna ka faali li qof ana liti gabal oo meelay baayeen ingaaden sidmeel kale ingaaden sidina dhini kale ingaaden sididana dhini kale ingaaden sidii kale dhini kale ingaaden anigu Abdi Aadan Usmaan waxaan ku dhashtay gobolka Bakool gaar ahaan tuulada degmada Daynuunay gaar ahaan tuulada Luta anigoo ah anoo ku kooy beerta aaday beerogana oo al-shabaab meelaha qabati mayba igeena Ali Gaduud taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed Sareeye Guuta Cabdixamiid Maxamed Dirir ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay horjoogayaasha iyo maleeshiyaadka argixisada al-shabaab ka tirsan ee isku soo dhiibaya ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. waxaan maanta aad u jeedaan hortiina taagan waa dhalinyaro Soomaaliyeed oo ka tirsanaan jiray ururka al-shabaab haddana qaarkood ay ka soo fakadeen oo isu soo dhiibeen ciidamada jiida ee joogay oo la dagaalamaya shabaabka markii ay arkeen awoodda ciidanka iyo dhaqdhaqaaqa ay Mareykan ay ku jiraan dib u xoreynta dalka iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ugu jiraan halkan waxa hortiina taagan 13 dhalinyaro ah 13 kaas 12 kamid ah waxay isu soo dhiibeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed furimaha hore jooga laba kamidana waa dhalinyaro yar oo ay soo qafaasheen al-shabaabku ayna ka soo qafaasheen gobolka Bakool halkaas oo ciidamadu iyagoo haysta ay ka soo badbaadiyeen haddana ku jira ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gacantiisa waa ilaahay maadi waa guulaha la gaaray kuwa badan oo hadda raba inay is soo dhiibaan oo xiriir soo sameeyeen way jiraan maadaama ay hadeer gacantoodana ay ka baxday meelihii ugu badnaa ay haysteenna hadda ku sugan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa inta badan gobolada dalka Soomaaliya waxay ka wadaan howlgallo ay ku bartilmaameedsanayaan horjoogayaasha iyo maleeshiyaadka argixisada al-shabaab ka tirsan.